qabiilooyin isu tegay kuna bahoobay inay dhistaan ciidankii ugu arxanka darnaa taariikhda aadanaha waxay ahaayeen duufaan argagax ku abuurtay dunida oo idil in ka badan 40 milyan oo qof ay ciidda hoos mariyeen dawladihii xilligooda jiray waxay u arkayeen inay caalamka soo gabagabaynayaan ayna tahay kama dambaystii ilaa ciidankii islaamku soo afjaray taariikhdoodii dhiigga ku xardhanayd mid ka mid ah dagaaladii ugu saamaynta badnaa abid daawadayaal ku soo dhawaada bilowga ilaa dhammaadka sheekada ciidankii tataarka oo kooban magacaygu waa maxamed suweydli halkanna waa madowles TV gaashaanbuurtii tataarka makiinadii dilkee dhaqaaqaysay magaca tataar waxaa la odhan jiray qabiilooyin dega waqooyiga bari ee Mongolia waxaana qabiilooyinkaasi ka mid ahaa beesha Mongol markii ay u suura gashay hogaamiyahoodii Genghis Khan inuu mideeyo beelahan waxa magacooda guud noqday Mongol imbaradoriyadan waxa la arkay markii uu horeysay sanadii 603 ee taariikhda islaamka waxaana hogaamiye u ahaa dagaalyahan lagu magacaabi jiray Timujin ama Genghis Khan oo ahaa sarkaal ciidan una muhanayay daadinta dhiigga aadamaha sanado yar kadib waxa dawladiisi uu ku ballaariyay laga soo bilaabo Kuuriya waqooyiga Shiinaha ilaa galbeedka dhulkii Khawaarzimiga dawladaha islaamka ka talinaya xilligaasi waxay u dhignaayeen sida tan khilaafadii Cabbaasiyiinta bartamaha ilaa koonfurta dhulka Ciraaq Masar Sham Xijaas iyo Yemen waxay gacanta ugu jireen dawladii Ayuubiyiinta oo u kala jajabtay boqortooyooyin yaryar dalka Morocco iyo aagii Andalus waxay gacanta ugu jireen dawladii muwaxidiinta oo ahayd mid taag badan ilaa ay kala googooday una kala qaybsantay maamullo tiro badan dawladii Khawaarzimiga ayaa ugu weyneed xilligaasi xukuumadaha islaamka ee jira laga soo bilaabo bariga Shiinaha ilaa galbeedka Iiraan ay ku fidsanayd balse waxa khilaaf iyo colaadi kala dhaxaysay Cabbaasiyiinta iyo dawladihii la jaarka ah Hindiya maamulkeeda waxa gacanta ku hayay sandaladii Qooriyiinta oo muran baaxad leh kala dhaxeeyay dawladda Khawaarzimiga aaga Farisiyiinta bariga Ciraaq ee Iiraan hadda waxa ka talinaysay xirta Ismaaciiliyiinta dhulka Anadol ee Turkiyada hadda waxa ka talinaysay dawladii Salaajiqada Rum ee Atrakta kuna dheganayd imbaradoriyadii Byzantine duulaankii tataarka koox ganacsata oo ka soo jeeda beesha Mongol ayaa lagu laayay gudaha xuduudka dawladda Khawaarzimiga dhacdadani waxay ahayd mid aan sababteeda la qeexi karin fariin ayuu Genghis Khan u soo diray Maxamed Khawaarzimi Shah uu kaga codsanayo in loo soo gacan geliyo dadyowgii falkaasi ka dambeeyay Maxamed uu diiday codsigan waxaanu ku yiri waxa lagu xukumayaa eedeysanayaasha dhulkayga iyagoo loo eegay shariicada islaamka tani waxay daahfur u noqotay gumaadan kala go'ol lahayn qarni dhiigaadan la daadinayay iyo xadaarada jiray oo dunida laga tirtiray dagaalkoodii horeeyay waxa uu dhacay sanadkii 616 taariikhda islaamka agagaarka bari ee wabi lagu magacaabi jiray Siixoon oo ku yaala halka ay maanta tahay dawladda Kazakhstan afar cisho markuu dagaalku socday waxa ka dhintay labada dhinacba kumanaan askari tiro badnaanta ciidamadii Mongoliyiinta dartooda ayaa ciidamadii Maxamed Khawaarzimi ay dhabarka u soo jeediyeen iyadoo ay ujeedadoodu ahayd inay cadawga ka difaacaan caasimadda Orjanta iyo magaalooyinka waaweyn ciidamo tiro badan oo saanadooda military u dhantay ayuu soo safay hogaamiyihii Khawaarzimigu suurtagalnimada guusha Maxamed way yareed waayo waxa uu colaadinayay dawladaha la jaarka ah oo ay ku jirtay khaliifadii islaamka ee Cabbaasiyiinta eebana korahay wuxuu quraankiisa ku tilmaamay waadiicu allaha wa rasuulahu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين duulaankii tataarku wuxuu ku soo ekaaday dhul ballaaran oo ciidamadii Khawaarzimigu uga yaaceen Mongoliyiinta degmada Bukhari ee hadda ku taala dalka Uzbekistan ayay soo gaadheen raggii deegaanka birta ayay ka asleen dhammaantood dumarkiina inta ay kufsadeen ayay laayeen caruurtii yaryareedna way qafaasheen magaaladii iyo dhismayaasheediina waxay u ekeysiyeen meel aan hore loo degi jirin hore ayay u socdeen ilaa ay gaadheen magaalada Samarqand dadkii deegaanka oo idil way xasuuqeen hal qofna kama uusan baxsanin hagardaamadooda laga bilaabo Siberia waqooyiga xeebta Baltic ilaa xuduudka jasiiradda Carbeed dhulka Sham koonfurta Falastiin ilaa jasiiradaha Jabbaan bariga badweynta Pacifica bartamaha ilaa galbeedka qaaradda gabowda ee Yurub ayay ka talinaysay dawladii Genghis Khan si ay u xukunto in ka badan 100 milyan oo qof iyo boqolkiiba 22 dhulka uu adduunku ka kooban yahay masiibadii Baghdad iyo baabi iyo xadaarada islaamka sanadku markuu ahaa 1258 hoolaaka iyo ciidankiisii arxanka darnaa waxay weerar ku qaadeen magaalada Baghdad iyo khaliifadii Cabbaasiyiinta 40 cisho ay gumaadeen bulshadii reer Ciraaq iyo baabi ay badeen aqoontii islaamka waxay ku guuleysteen inay dilaan khaliifkii Cabbaasiyiinta ee al-Mu'tasim billah iyo qoyskii uu ka soo jeeday tiro yar oo dad ayaa ka baxsaday masiibadan ilaa ay casaadeen biyaha wabiga Furaad dhiigii lagu daadiyay awgii
midabka webiga dajlana madow isu rogay kutubtii la gubay ee tirada badnayd darteed inta dabadeed ciidankii tataarku waxay u soo jihaysteen halkaa iyo dhulkii shaam madaxtooyadii talada haysay ciidankii dalku lahaa iyo bulshadii deegaanadaas waxay noqdeen kuwo dagaalama oo ku nafwaaya dagaalkaas iyo kuwo kaloo isu dhiiba cadowga kadibna unuunka laga wada guray sanadku markuu ah 1260kii ayaa xalab u soo gacan gashay ciidankii tataarka markii ay xasuuqeen bulshadii reer shaam waxay la wareegeen magaalooyinka dimashq ximis qasay iyo degmada khaliil dhirbaaxada hore waxay dabarjab ku tahay cadowga markii ay bariga dhexe loodiyeen ciidankii maangooliyiintu waxay u soo jaleeceen halka iyo masar dhulkii faraacinta fariin hanjabaad ayuu hoolaaka u soo diray boqorkii imbaraadoriyadda masaarida ee sayfudiin qotos uu ku leeyay waa inaad sukaya dhiibta haddii kale natiijadaadu waxay noqon doontaa sida dowladaha kula jaarka ah hoggaankii xukuumadda sayfudiin cabsi ayay islahayn kari waayeen waxaanay ku dhiirigeliyeen inuu ka aqbalo codsiga tataarka iyadoo aad mooddo inay ilaaween sidii u dambaysay dowladihii isu dhiibay ciidanka iyo sida ay u galeen geesigan reer masar waxa uu ganafka ku dhuftay talooyinka ay u soo jeediyeen madaxdiisu waxaanu ku dhawaaqay inuu dagaalami doono haddii aanay cid igala qaybgelin keligay ayaa dagaalamaya waa erayadii sayfudiin qotos uu ku tiraabayey iyo dagaalkii caanka ahaa ee caynujaaluud sanadkii 1260kii sebteembar 3 waxaa isrogi doona gebi ahaanba jihadii ay duufaantu u socotay iyo sanado badan oo muslimiinta cagta hoosteeda ay ku jireen ciidamadii muslimiinta oo ay hogaaminayaan sayfudiin qotos iyo halyeygii dagaalada ee daahir bebars ayaa u kici timay halka iyo falastiin si ay ugula dagaalamaan ciidamadii tataarka intii ay goobta dagaalka joogeen ayaa loo sheegay in hoolaaka u kici timay aaggiisii si uu uga qayb galay caleemasaarka xaakim cusub kadib markii kii hore dhintay waxaanu hormuud uga dhigay ciidamadiisa hogaamiye dagaaloo halis badan lana oran jiray katabqa labadan awoodood waxay ku kulmeen bannaanada caynujaaluud waxaana qorshaha dagaalku ah in guutada uu hogaaminayo daahir bebars ay ku daadegaan aagga ciidanka tataarka kadibna ay ka soo laabtaan iyadoo ay caydhsanayaan ciidamadii katabqa markii ay soo gaadheen goobtii loogu talagalay oo ay ku diyaarsan yihiin ciidamadii leebku waxaa bilaabmay dagaal lagu hoobtay oo galaaftay nolosha dadyow tiro badan muslimiintuna waxay u adkaysteen dhibaatada iyo awoodda ciidankii katabqa ilaa uu dagaalka safka hore ka galay hormuudkii boqortooyada masaarida sayfudiin qotos ciidankii waxaa gashay yididiilo markay arkeen hoggaankoodii oo dagaalka kula jira si ay muslimiintu u guulaystaan kana tirtiraan dhiigcabyadii tataarka adduunka oo idil waqooyiga shaam ilaa falastiin waxay la bahoobeen boqortooyadii masaarida waxaana sidaa lagu soo duubay boggii ciidankii ugu dhiigdaadiska badnaa adduunka iyo taariikhdii oorasiya haddaba daawada ma kula tahay mid ka mida madaxda dhulka islaamka ee ay kolkoliyeen saxaafadda habeen iyo maalin waxaa ku jira hogaamiye geesiya sida daahir bebars ama awoodda iimaanka ee sayfudiin qotos noogu reeb faalladaada xagga hoose muuqaalkana la wadaag asxaabtaada naguna soo biir